dhowaan bay ahayd markii jaamacadda Camuud ay kaalinta koobaad ay ka gashay qiimeyn lagu sameeyay jaamacadaha ku yaala Somaliland gaar ahaan kulliyadaha caafimaadka waxaana qiimeyntani lagu kala saarayay jaamacadaha Somaliland sameeyay oo darsay khubaro caalami ah munaasabad lagu maamuusay laguna xusayay guusha ay jaamacadda Camuud ay gaadhay habeennimadii xalay ahayd lagu qabtay mid kamid ah hoolasha ka dhax binaysan Hotel Rais waxaana kulankaasi ka soo qayb galay oo ku kulmay madaxda ugu sareysa jaamacadda Camuud madaxa xafiisyada iyo hormoodada kulliyadaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda sidoo kalena waxaa kulankaasi kala soo qayb galay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Axmed Muuse Muruud waxaana ugu horeyn madasha hadalka iba furay gudoomiyaha guud ee kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud Dr. Saciid Axmed Walhad waxaana uu ka dhawaajiyay intabana waxa tiro badan baa la soo saaray marka dhaqaatiir teegto iyo neertada shaqaalaha ka soo baxay maana ka soo graduates ka soo baxay Camuud Health Science ka soo baxay Somaliland oo dhan cusbitaal inay joogin ma jiro muxuu ahaa Soomaaliyana marka laga bilaabo Boosaaso ilaa Kismaayo meel inay joogin haba yaraatee ma jirto marka naftoodiina way anficeen dadkoona way anficeen ummadda Somaliland waxaan u ballan qaadaynaa in qof anigu naftayda ku aamini karo yani marka dhakhtar soo saarayso weyn adigu naftaada ku aamintaa qof anigu naftayda ku aaminayo macnaha waxa weeye waa qof leh quality-gi iyo skill-ki iyo knowledge-ki iyo attitude-ki in qof caynkaas oo kale inaanu soo saarno intaas wixii ka dambeeyay waxa hadalka madasha iska daba qaatay gudoomiye ku-xigeenada jaamacadda Camuud Professor Boqor iyo Professor Diriye iyo sidoo kale Dr. Faadima Xaaji Abukar hormuudka kulliyadaha kalkaalisada iyo umulusooyinka waxayna dhamaantood ay istul taageen guusha ay jaamacadda Camuud ay soo hoysay horta kulliyada xafladan waxaynu ugu talagalnay inaynu ku maamuusno guushii ay soo hoysay kulliyada caafimaadku markii la qiimeeyay ay hormood noqotay kulliyadaha caafimaadka ee Somaliland runtii inaynu yara faraxno inaynu guusha ku faraxno isna yar hambalyaynaynu u nimid kolka imika alxamdulillah waxa la soo diray niman khubaro ah oo jaamacada oo South Africa iyo laga keenay dibadaha kale laga keenay oo jaamacada soo wada maray oo qiimeynaya qolo waliba halka ay taagan tahay maana ka laadiyo maana ka liitada miyaa ana number 1 kala sheegta alxamdulillah aad baan ugu mahadnaqaynaa ma dhaqdo marka maanta waxaan guusha ugu faraxsanahay medical schoolka haduu maanta noqday permanent oo ka horeeyay kuwa kalena way daba socdaan mid kale waa lii sheegaya waxaan bilownay Oscar wax la yiraahdo ilaa beginningkii 2010 ilaa maanta la wada waxana la wada dad international maanta waxa la waraaqii u dambeeyay la noo soo qoray waxa weeyaan Camuud way isku filan tahay dhankiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Camuud Professor Salebaan Axmed Guuleed waxana uu ka dhawaajiyay sahaatee waliba waxay tani qiimo gaar u leedahay inaga albaan qiimeyn jiray Oscar la isku qiimeyn jiray waa ay jirtay taana inuu gaadhay laakiin kan uu ka duwanaayo wuxuu ahaa more comprehensive international benchmarks baa jiray oo miqyaas caalami ah ayay ahayd oo la eegayay waan ognahay ilaa 20 qodob oo lagu qiyaasay jaamacadaha 20 ka badankooduba Camuud waa iyada ugu kowda gashay ma aha meel lagu joogayo oo la gaadhay waxa la yiraahdo horumarka waxa u salca kelmadda Ingiriiska marka la yiraahdo in whatever way you are doing things there is always a better way to do it tartanku annaga waxba nagama dhinta Camuud markaan eegno mesela waxa soo gala jaamacadda Camuud تقريبا 1400 إلى 1500 سنتي أنت أم سنتكنا سوق عشان حنا نقابل ما يترتن جيك لكن أقوانتي جود السمال العيد لا وعيسى هدي أن رنتي سيدا إما كتوم باللوقي مي هدان كوا كلا اللوقي مين قنتي جبدي وح هذا الكمداش صاف مري أقاسمها جود التعليم تسري وسرد وحبرشة يسنس كسوماليلان أحمد موسى مرود isagoona sheegay in qiimeyntan intan ku eekaanayn aad iyo aad waan ugu faraxsanahay maanta anagoo ah agaasimihii guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland jaamacaduna jaamacadaydi ay ahayd oo aan joogay muddo 14 sanadooda inay maanta noqoto tii koowaad laakiin ma aha sidoo boqor sheegay ma aha inay halka ku eg tahay
waxa weeyaan tartankani waa wax soconaya wuxuu u baahan yahay wax sustainable inuu noqdo kalena aad baan u sameeyay midna waan idinku sheegayaa sida jaamacadaha caafimaadka loo qiimeeyay ba kuwa kalena 2020 marka laga bilaabo la qiimeynaya waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.